jeclayn inaan qadiyadaas aan soo celceliyo idinkoo igu daalayay kuwa lamida inaan ka hadlay laakiin dareenka ay dhalinyaradu lab iyo dhadig baraha bulshada ka muujiyeen ee diin jacaylka ah ee danqashada ah ee islaam jacaylka iyo dhiidhiga ee ficilada diineeda ayaa idanqay oo u kalifay inaan qadiyada caawa ka hadlo qodobkaasi mahadnaqa dhalinyaradu waa iga mudan yihiin khayr allah siiyo diinkada allah ku sugo mar walbo qadiyada noocaas ay timaadana waxaan ka doonayaa inay ka hadlaan qodobka ii raaca waxaa weeye inaa warsamo hadalkiisu inaan qiimeeyaan rabaa kadibna xugum saaro marka xigtana wadaadaha ka hadlay waxa ka khaldan aan tilmaamo marka xigtana waxa idinkaga aadan dadka noocaasoo kale aan tilmaamo qodobka koobaad waxaa weeye ee ku saabsan inaa warsame hadalkiisa togan iyo ka taban bilow iyo dhammaad marka la qiimeeyo la dhibciyo wuxuu xambaarsan yahay in la quursado nidaamka islaamiga ee siyaasadeed la bumbuuniyo la ammaano la bilo nidaamka reer galbeedka siyaasadeed hadalka nuxurkiisa guud markaad qiimaysaynu ka hadlayna bilowga hadalkiisa ilaa dhammaadkiisu wuxuu iskugu jiraa hadal toosoo togan mubaashir baa carabiga lagu yidhaahdaa iyo mid taban af soomaaliya tabni baa la carabina hayru mubaashir baa la yidhahdaa hadalka togan ee toosan iyo ka tabanba bilow iyo dhammaad markaad isku qiimaysa qiimayn guud maxaa ka soo baxaya waad dhegaysateene anigu 3 goor baa ku ceshaday waxaa ka soo baxaya nidaamka siyaasadeed ee islaamiga inuu quursanayo xaqirayo ama uu daraabayo xaggana uu bilayo wanaajinayo nidaamka reer galbeedka ee wastareenka siyaasadeed dimuqraadiga mucaasirka ah qodobka asaga waa kufrun fi diin illahi biijmaaci almuslimiin gaalnimo uu ku dhacay kow iga dhimidda ayada gaalnimada kale hadalkiisa uu xambaarsanaya labaad waxaa weeye inuu inkiray xadiidkii saxiixa ahaa fi saxiixayn ummadduna ay kula kulantay bilqabuuli ay kula kulantay 1200 sano ka badan من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ومن حديث ابن عمر في صحيح مسلم يا أحاديث فربنا وذكرنيسا ناقصات عقل ودين وحكوت المامي إنا ورسمي وحكوت المامي إنه يا حديث فالساء أو ميلو كيمد أي سنشرين أو شابك لغلا صوبحاي عذر دارشدي الدبلوماسي السياسي هيدا بي بسدا أوسيين وحكوش إنه حديث كانوا صحيح وأجيه حديث نبي محمد أكتها إنه السوية نينك الضفير حكم كيسو وكفر أصونا على الراجح من أقوالها العلم وإن كان من أخبار الأحد خبر واحد بالله كردقو نينك الضفير حديث سوغان لفظيسا أمام معانيهيسا أصوغو قرنية إنه السوية هاي نبينا أوليها وكفر اللبات أو كدعي كفر صدحات uu ku dhacay waxa weeye hadalka taban laga fahmaayo ama daahir bakuwa nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo culimada muslimiintu xaqiray laana xadiidka wuxuu sheegay inuu xaqirayo dumarka in lagu afjigo oo xaqay leeyihiin lagaga celiyo dumarka lagu quursado lagu xaqirayo xaqa siyaasadeed leeyihiin loogu diidayo xadiidku sugaya sidoo asagu uu arkay marka uu aaminsan yahay xadiidka xaqiraada iyo liidnaanta iyo dulmiga dumarka xambaarsan waxa ku hadlay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam taa macnaheeduna waxa weeye suubanuhu asaga kow ka ah wadaadaha iyo culimada xaqira dumarka xaqoodana u diiday afjiga xaqa siyaasadeedna sanka kaga dhuftay u diida suubanuhu la xaqira kaleey salaatu wasalaam waa maxay waa kufrun biijmaaci ahli alqibla hadalka saddexaad kufriga saddexaad inaad sidaa u fahanteen baan u balaynaya waxaan ka hadlayaa hadalkiisa tooska midka sariixa ka daahirka ka iltizaamka iyo luzuumka ku imanaya intuu waa isku qiimeynaya waxa kaloo ku jira hadalkiisa
inaad dhagaysateen baa laga yaabaa qaybaha u dambeeya wuxuu leeyahay waxa la sheegay laleeyahay musiibaa dhalan iyo balaayaa dhalan iyo libaandaraa dhici haddii dumarka siyaasadda loo dhiibo ama ay taliyaan ama madax noqdaan waxba kama jiraan waa been buu leeyahay halkaana wuxuu dafirayaa oo beeninayaa suubanaha calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii abubakr nufay ibn alxaaris lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a nabigu ma guulaystaan mana liibaanaan buuri nabigaa yidhi asna wuxuu yidhi waa been waxba kama jiraan way guulaysanayaan wax musiibaa dhici mayso isku dhac iman mahayo hawshu waa dhagdhag nabi allow keri of baa lagu yidhi hadalkiisu waa sida si fiican dhuuxdeen baan waa kufri afraad waa kufri iyo gaalnimo afraad wey hadalkaa dib u dhagaysta midda shanaad ee ku dhacay gaalnimada shanaad ee ku dhacay hadalkiisa erayga ugu dambeeya wey wuxuu leeyahay haddii dawlad aan awood ku leeyahay ama aan ka taliya ay istimaado Soomaaliya waxaan ogolaanayaa oo qarirayaa in rag iyo dumarku ay siman yihiin maydan dhagaysanin baan u malay rag iyo dumarku waa siman yihiin waxba uma dhaxeeyo dumarku ragga kama hooseeyaan naaqus ma jiro waa laba farood siman buu leeyahay وهذا ومحي وتقرير المساواة بين الرجال والنساء وكفر أكبر بإجماع المسلمين وأنا في علماء اللي يقول لا يتضباطنيو شنتي قد يدو يسقالك أما طبنك اللي قد لي كفر قاسي وكفر شنادوي كفر لحاد وكتر وحاوي هوين ايدي قاشا هايد انجلا ماركل ku duqowday gaalnimada tincaska ku noqotay ayuu amaan kala dul dhacay aadna u amaanay wa tabjiilu kaafirin kufr inda alfuqaha gaal in la weyneeyo oo la bombooniyo oo ummadda qudwada ku dagasho looga dhigana waa gaalnimo madax banaan عند بعض الفقهاء كفقهاء الحنفية بل وحي قارسية فقهاء ولو سلم على مجوسي تبجيلا كفر ولو قال لكافر يا أستاذي تبجيلا كفر هداد قال وينيسو وكتر المعلن كيجي وبرفصور كيجي وأضو وينيني أما ثلاثة سلام أي كم مقنا يسوي وينين كفرت بالله العظيم عند فقهاء الحنفية أنجلا ماركل قاب هو ويني يسوء بونبوني يمشوا جي إلى أن كسرتين عن شعل هذا الناقطة أيوه وذي ومحي والتبجيل كافر كفر من هو كفر بعد هيسان لحظة قال نمو كتيرا إنا ورسمه 6 سنة هي حتى سيسر بين أغنوسن توبت كين بين بوشيغي مركو لها واربحين تبي بسدسي وحيري وحان كودي معناها حديث كبينتي وي مركز باب الكفر هي تفسير الألفاظ مريسان هي دلالاتك روح هذو قال لما عدكو الله أما إري ظاهر كؤه معنى أوكوها الله كدبنا ومعنى كلا كؤولا لا يقبل عند العلماء حديث فالساء وميلو كيمد أوسنشرين أو شابك لغا صباحي أي ضمرك اللغو حاقر يا هذا الكيس السريح يسوي ما يمسماها وحان كوذا التفسير كيسير معنيه سواء بين عط وكلام دبلوماسيا بردق الليسي عامضة للربا إن شفع الله اللغو أرضه ضدك للقوية للربا إلى أمن كان توبة صريحة وولي منك أسقى موجر لحظة كفري أيا أرمك هذا الكسفير يبنان كتالا نيكي سيقود قدرة أفمدوبا لميل على جموايه واللقيه ليا كفريات كله محام مسلمين تكادا مسلمين توحكادا نينك أسقى وحو خطر قليي دين كيجا wuxuu meel kaga dhacay qadarintii iyo xurmadii shariicada yada wuxuu qursaday subhanahu naga calayhi salaatu wasalaam waxa waajiba naftiisa in khatar la galiyo meel walba uu joogo lagu beegsado dhalinyarada muslimiinta la hadlaya jilib culusta lama hadlayo laano jilcustu waa igabeen haday xubinkooda iyo cadkooda goostaana halkaaba maanta hawshu ma gaadheen ninka gabay geedkiisu nagu soo dumay waa duqayda dhalinyaradan la hadlaya dhalinyaradu waxa waajib ku ah ninka asaga sidoo muqaddasaadkiina khatar u galina naftiisa khatar u galisaa
وأنا أتحمل مسؤولية ذلك بين يد الله سبحانه وتعالى مداسي وقضب أرهب إلى أجرق قضب كير عوحاوي wadaadaha ka hadlay badankood hagardaamo diineed bay idinku sameeyeen hagardaamo diineed bay idin geysteen waxaan ka ahayn inta anigu dhageystay baan ka hadlayaa sheekh daahir aw cabdi iyo sheekh xasan daahir aways faka allah wa asrahu waxaad arkaysaa kuwa kuwale ninka waa inuu toobad keeno ayagoon xukumayn waa idabdaro iyo marin habaabin ummadeed weey ruuxu hadduu cudurdaar leeyahay ama kufri ku dhaco ama uu dembi ku dhaco cudurdaarna leeyahay ha toobadkeena macnaheedu maxay tahay waa been caamadaa lagu siraa idinkaa waxaa laydin moodsiinayaa in la hadlay oo xaqi la caddeeyey oo diinka la sharxay oo diinkii la difaacay waa been wey ninku hadduu cudurdaar leeyahay oo ama muta'awil yahay agtiinna ama uu jaahil yahay dembiba kuma dhicin muxuu ka toobad keenayaa كفر وكمد